ku bilaabaneynaa saaxiibayaal filimkii dhammaay ee sanadkan aan ku wada tashanayna ee Toxis lagu magacaabay Yash hogaamiye ka ahay filimkii sanadkan waa baaqday sanadka dambe 2026 bisha 3 Maarso 19 Maarso ayaa la daawan doonaa Ciidul Fidriga sanadka dambe 2026 ayuu aada saaxiibayaal hal sano oo kaamil ah ayaan sugeynaa filimkan saaxiibayaal sidaa darteed marka aad ayaan ugu xunnahay filimkan inuu baaqdo laakiin aniga waxa ay cajab gelisay kaartada ayaa ay cajab gelisay saaxiibayaal meesha aan ka filayay muuqaalka ninka lagu magacaabo Rocken Stariash kaartidiisa koowaad iyo kaartada laga soo bandhigay kaaf iyo kala dheeri waay meesha aan ka filayay maahane meel ka sareysa ayuu ka soo baxay ninka odayga Rocken Stariash aniga waxaan isdhahay Keito Mohandas ayaa filimkan director ka kaarto iska yaro buluketi laga soo bandhigay laakiinse kaarto waxaa laga soo bandhigay hadee indhahaba aan u dhamaan karin sax kaartada ayaaba idishaba filimka taariikhdiisa in dib loo dhigay waxaas maba u jeedaba laakiinse kaartada ayaaba i qancisa waxaas oo dhan ilowsiisa saaxiibayaal almawduuc wax oo dhan aan iska soo koobno filimkan dib ayaa loo dhigay saaxiibayaal sanadka dambe 2026 bisha Maarso ayuu aaday taariikhda uu aadana saaxiibayaal iska aad ma horta taariikhda uu aaday 21 bisha ilaa 20 bisha Maarso sanadka dambe Ciidul Fidri ayaa ku soo aadan haduu Ilaahay naf nagu gaarsiiyo laakiin 19 bisha loo ballan qaaday bisha Maarso waxa ku jirto laba feesta ayaa ku jirto isbuuc dhan oo fasax oo wax shaqo ay si jirin ayuu heli doonaa ninka lagu magacaabo Toxis oo Yash hogaamiye ka yahay saaxiibayaal inkastoo Kalash uu galayo wuxuuna Kalash la gali doonaa filimka lagu magacaabo Love and War oo Ranbir Kapoor iyo Vicky Kaushal hogaamiye ka yihiin waxaas buluketi way jaabi way Ranbir Kapoor iyo Vicky Kaushal film ay wadaan oo Love and War lagu magacaabo waa iska buluketi jaabi way markii loo fiiriyo filimkan Toxis oo Yash hogaamiye ka yahay laakiinse wuxuu kala kulma ayaan arkaynaa laakiin hadda warka saxda ah oo soo baxay wuxuu sheegaa waana confirm shirkadda KFM Production ayaa soo bandhigtay iyo Monster Man oo Rocken Stariash iska leeyahay 19 Maarso 2026 ayaa la daawanaa filimkan saaxiibayaal haddaba saaxiibayaal Buram iyo